inay akhrisabaanta waxaad ku ogaanaysaa waxyaabihii xayawaanku ay ka xishoon jireen ayaabay bini aadamku maanta ku faanayaan waa ii doodayaan ciyaartooyda Jarmalku markay kubadda ciyaarta soo galeen dhammaantood afkay wada qufteen iyagoo leh xuquuqdeedii ayaa la noo diiday oo qoomuluudkii ayaa xuquuqdoodii loo diiday cajaa'ib labada xul laba farqi ay u dhaxaysay waana ta keentay in Japan ay badiso Jarmalku wuxuu ka fikiray arrimaha qoomuluudka iyo waxa weeyaan LGBT-ga iyo xaysiis iyo waxa weeyaan cunaha ayaa la qabtay xagga waxa weeyaan Japan ay ka fikirisay kubadda sida ay ku badan lahaayeen maxay dadka Japanese-ka uga duwan yihiin adduunyada inteeda kale markii ciyaarta la soo galay Sirwalo wuxuu tijaabiyay inay kabtan ahaan u sitaan calaamadan muujinaysa in la waxa weeyaan LGBT-ga runtii aniga fikirkayga yacni markii koob adduunka la gadar ayaa lagu qabanayaa fikir aad uga duwan ayaan ka haystay kan imika jira haddaba saaxiibayaal intaan muuqaalkan u gudagelin waxaan idin ka codsanayaa inaad like iyo follow aad nagu soo birtaan haddii aad nagala socoto dhanka waxa weeyaan YouTube subscribe tahay ilaawin oo nagu soo bir sidoo kalena programkan share gareey oo gaarsiiya asxaab fara badan runtii waxa ka dhacaya gadar waa maalin walba mucjiso cusub oo waxa weeyaan aad loogu riyaaqo oo loola yaabo dadka Japanese-ka ah waxay ahaayeen dadkii waxa weeyaan ka yaabsaday gadar oo run ahaantii aad u la tacajubeen markii waxa weeyaan taarbuunka ay soo galaan taageerayaashu waxay sitaan waxyaabo cunaan sharaabo waxa weeyaan keegag waxay sitaan calamo marka ciyaarta waxa weeyaan la kala badiyo kuwa laga badiyay iyagoo caraysan waxay sameeyaan wixii ay sideen oo dhan dhammaantood way qubaan calamadoo dhan way qubaan xitaa kooxda kale ee waxa weeyaan taageerayaasha kale badiyay qascadaha waxyaabihii wax ku cabeen oo dhan way iska tuuraan dhulka ku tuuraan iyagoo wax micnaha ka gelin laakiin dadka Japanese-ka iska daa inay iyagu wax wasakheeyaan waxay soo qaateen bacooyin waaweyn waxa weeyaan ay ku guraan qashinkii waxa weeyaan ay ka tageen dadkaas taageerayaasha ah bal ka waran nin taageera oo guraya qashinka 60,000 wax ka badan oo qof qashinkoodii cajaa'ib imika kaliya ma aha dadku imika ay ku baraarugeen laakiin 2018 sidaas la mid ah ay sameeyeen oo dadkoo dhan yacni caalamka dhan ay aad u soo jiidatay dhacdooyinkan la yaab kale ee dadka Japanese-ka ay sameynayaan Japan haddaba waxay leeyihiin caadooyin ay aad uga duwan yihiin adduunyada inteeda kale waa dad aad u ilaaliya habdhaqanka iyo caadooyinka oo qofku markuu yar yahay waxa weeyaan lagu soo ababay oo lagu soo koriyo waana ta keentay inay ka duwanaadaan adduunyada inteeda kale waxaa jirta su'aal la isweydiiyay oo YouTube haddaad ku search garayso run ahaantii in badan laga hadlo maxay dadka Japanese-ka uga duwan yihiin adduunka inteeda kale waayo dadka Japanese markay noqoto waa dadka ugu xirfadaha badan waa dadka ugu yacni qiimaha badan marka bini aadan la eegayo dalalka marka la qiimeeyo oo qofka Japanese-ka marnaba bilaa camal ma noqdo xitaa maxaa keenay maxay dadka Japanese-ka yihiin dad aad u ixtiraam badan marka adduunyada inteeda kale loo eego sababuhuna waa kuwan dalka Japan marka aad tagto Suuriyadu waxa weeyaan ma ahan waxa laga fikiray sida biyahan waxa weeyaan qubanaya loogu sameyn karo reuse waxay u sameeyeen meesha lagu farxasho waxa weeyaan sida idinka muuqata dhinaca sare ee waxa weeyaan xoodka waxa weeyaan waxay ku sameeyeen bahalka yar dabeetana xaggaas oo qofku ku farxalanaya markaas uu biyahana raacinaya waxay taas ka macno tahay waxa weeyaan in ay ilaalinayaan biyaha badan ee waxa weeyaan lumaya ama wasakhoobaya ama la waayo waa dad aad u ilaaliya nidaamka iyo xeerarka meel u yaala sida xagan kaaga muuqata waxay dad fara badan ku ugu jiraan inay halka wada maraan xagga jaranjaradan kale ay tahay mid maran maxay bal ka war qof Soomaali hadduu xagan joogi lahaa waxaana wala waxa meesha ku yuga xagan kala mar lahaa laakiin iyagu taa maaha waxay u muuqata waxa weeyaan inay tan kor tahay tan soo daadeg ay tahay marka si kasto ay tan u maran tahay marayaan tan kale ee waxa weeyaan sharcigu amrayo ay marayaan dadka Japanese-ka markay yar yihiin caruurtooda iskuulada waxay ugu dhigaan nadaafada oo qofka yar ee Japanese-ka markuu yacni elementary marayo ama KG-ga waxa weeyaan la baraa inuu waxa weeyaan wax kasto wax ku cuno uu dustbin-ka geeyo waanu yacni laga daba qaaday taas markaa waxay keentay inay noqdaan dadkan ka yaabiya adduunyada inteeda kale nin gadaraya ayaa aad u la tacajubay waxa weeyaan nin raggan guraya qashinkoodii maalintii koowaad ee ciyaartii gadar iyo Ecuador ayaaba waxa dhacday calaamadii gadar oo dhan baa la qubay oo qof kasto taageera markii laga badiyay isagoo niyad jabsan buu kacay calankii wixii sitay oo dhan dhulka ku tuuray dadka Japanese-ka ayaa guray nin markaa gadaraya ayaa aad u la tacajubay yiri maxaa yacni fikirka intan la eeg respectiga intan la eeg ay sameynayaan talo maxay tahay dadka Japanese-ka waa dad si smart u fikira waxa weeyaan waxa laga yaabaa Suuriga haddii aad meel toilet soo gasho inaad marba mid tijaabiso talo ka wada lagu jira ka kale wada lagu jira ka lagu jira ka wada lagu jira laakiin iyagu waxay u sameeyeen qaab yar smart lagu kala garan karo ka lagu jiray ka lagu jirin
green and red bay kala bixinayaan alert yar oo muujinaya waa dad very smart ah qofku wuxuu seexan karayaa bus stationka ama meesha tareenka laga raaco isagoo mobilkiisa iyo shindadiisa xaggaas ka yaalaan ajaib dadkaas dad islaam ma aha waxaan jeclaysan lahayn inay diinta islaamka soo biiraan waayo dhaqamada iyo caadooyinka leeyihiin waa qaar aad u qurux badan oo aad u wanaagsan inaan kaga dayano wixii wanaagsan aad bay u mudan tahay haddii ay dawladda Jarmalka leedahay cunaqabateyn ayaa la saaray oo waxa weeyaan waxa la noo diiday xuquuqaadkeygii waxa weeyaan ay ka celiyeen xulkii Jarmalka Mesut Ozil oo ahaa ciyaartoy dhexda uga ciyaari jiray oo ka hadlay waxa weeyaan muslimiinta China lagu leenayay markaas waxay ku eriyeen oo dhaheen maxaad uga hadashay waxaas sababtaas ay looga saareen xulka way ku celiyeen iyaguna waxay leeyihiin waxa la noo diiday xuquuqaadkii qowmuluudka